إذن إسبدل كبني آدم كعقله كبلا ما إسبدل كماتيريال لكو بجرايه ما ماتيريال لكو بجرايه عرفت الدارات على أربعين استي لكن ما حبيس يوكر ديين سكاي سكرابس بي وضع ديسين أنا قاعد دار طيدا تينا كده والله بدار عركة قوان إن شاء الله وضع ديسين لم يقول روح بدل ما لسه وحاسمها وحبة بدلها ماتيريال كود سوكو بيسو هرمركم معها هرمركم بني آدم كود بدشوا سيدو فكريو سيدو وحو باريو سيدو وحو قبانيو بني آدم كو يساقا مركا عنا قالها السماية يساقا وحصوصار كالسماية يساقا وحا كالسماية جيرماني دولك على لسماية لكن عقلي جاي هرو بدلين دولك مركي لا لسماية وحي كردقان محي مالك من النبي با وحو رانشري مركي دولك على لسماية جيرماني هدي جرمانك الله سوى قاضي لهايو وضن أفريكان الله نحدق لها بيقول كو أفريكان كيد دقنا القاضي لهايو جيرماني اللي جايين لها كو سينميل دونسون بيسكن نولان لها يبولي كو الله سوى قاضي جرمان الله وضن عصب يدل عصب يسوي يعني هو بني آدم كا سيدو فكر يسوع وارك يسوع وقبر يا اللي سبدله إذا كادر كانوا ربنا ما هان لدهمي ما هالشهادة وراقات سيدتو حق سرنا كروس كجسوري حق هوسنا يكون قرنتي in the name of law بسم القانون حتى بسم الله الرحمن الرحيم قوة الله بسم القانون يكون تيك عامكم بحين شريبه وحسن نوقو قرأ تسيد الروضة الصومالية وكقاضي حتى بسم الله الرحمن الرحيم ولا هاي بسم القانون باكو قرأي in the name of law شهادة وراقة ما تنفع حبا كورين ميش هذا هو ماستر هو فيرست ديجري بوسيتا يا لبا ماستر بوسيتا يا لبا بي اتش دي بوسيتا هذا ما تنفع وهو وراقه لكن هداد ادو قف اسبدليت هيس مركاس معنا سمينيسا بي اتش دي غاغو معنا سمينيا marka tahay mutaallim rasmi scholar rasmi marka tahay marka aad nolosha wax ka bedelayso marka aad thaqaafadii odayada dib noogu celinaynin laakiin haddii aad halka tagto safka halkii kaga beerto wadanka marka aad tagtaa tiraado halkeeba dhadhan badan halkeeba wax laga xadaa dawladda halkeeba wax laga khiyaameyn karaa farsamadaadu ay noqoto good accountant baan ay wax isweydaarin karaa oo waraqo been soo saari kara bahashana la bixi kara waxba tuuganimadu ma xirfad soo baratay tuuganimada ay ma xirfad soo baratay marka waxaan u baahanay waxa weeyaan ka maanta dunidana isticmaar jadiida jira isticmaarka cusub new colonialismka cusub waa isticmaar sida quraanjada dhulka marayso buu ka soo hoos baxaya gurigaaga adigoo dhistay u badarkaysa oo iyadoo quraanjo meel daldalooliso ka soo dhex baxday jeexjeexu ka soo baxaya oo waa maxay jeexjeexu midunba ka soo dhex baayay kule الخدمات العامة بان idinku taageeraya caafimaadkan idinka caawinayna tacliintan idinka caawinayna askartan waxsiinayna shurtadan caawinayna qaanuunka iyo maxkamadahan wax tarayna xuquuqul bini'aadamkan kordhinayna dumarkan xoreynayna caruurta iyo xuquuqdoodan ilaalin waxaas ay u wadaan kaaga soo dhex baxayaan bay bulshada bedelayaan ay dhaahdaan dunidan dambe subversion theory bini'aadamka gudihiisa laga jabiyay laguma duula bay yiraahdeen gudihiisa laga jabiyaa waxaan rabnaa mujtamacaadkeena way sii burburayaan siyaasad ahaan bulsho ahaan dhaqaale ahaan waa sii dumayaan taxadiyaad khaarij kuwa daakhiliga wayna haystaan laakiin kuwa daakhiliga gudaha ka jira ba xaqiiqo ah taxadiyaad dhab ah haday qabiil tahay haday mukhaadaraad tahay maanta wadanka Soomaaliya gobolada gobol kasta ama dawlad goboleedyada ama dawladaha madax banaanida sheegtay marka la isku daro meel kasta barjadka dawladda barjadka qaadka ku cunaan ba ka badan Soomaaliland mesela barjadka dawladdu 300 milyan buu ahaa meelaha sumaray Itoobiya qaadka qura ay ka iibsadaan 540 milyan bay iibsadaan qiyaas adigu ummad muqaddarka ay cuntaa uu ka badan yahay maxay barjadka dhan ee dawladdu leedahay marka la isku daro ma inagoo qura ma xataa caalamul islaami waa lamid dunida carbeed oo dhan marka la isku daro wasaaradaha tacliinta iyo wasaaradaha maxay sixada wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tacliinta oo dhan marka la isku daro wasaaradda sigaar cabiska ka lacag badan bal qiyaas adigu caalamul islaami oo dhan marka la isku daro
sigaarka iibsadaan baa wuxuu ka badan yahay wasaaratu sixa iyo wasaaratu tacliim waxaa ku baxa waa carab oo dhan markaad isku darto bilbalaayiin baa sigaar lagu cabaa idan isbeddelkaynu rabnaa daara maaha isbeddelka aynu doonaynaa ama mutacalimka aynu rabno ama scholarka aynu doonayno inuu waddankii tago intellectualka rabnaa maaha intellectual daar noo dhisa ama dhaqaalo sameeya kaas maaha asalka waxaa asalka intellectual bini aadamka wax ka bedeli kara waxaana bini aadamka wax ka bedeli kara qof isagu bedelmay qof isagu aqoon-yahan noqday qof isagu muthaqaf noqday taxadiyaadkeena daakhiliga waa kuwa waa xadkaas qabiil waxba ay ka socon waayeen dowladnimada soomaaliya way isu yimaadaan maxay qaadaan soomaaliya toosoo dabeetana way ooyaan shirarkooda waxaad sonaysaa war wallaahi waa kan ilaahay soo hadeeyey cabbaar markay ooyaan bay isdooranayaan oo qolo fanaaniinay gabaydo oo heesa la tiriyo oo calan la huwado oo caynka la sameeyo ayaa dowlad la doortaa dowladda marka hore la dooranayo reer waliba wuxuu isleeyahay dee ama madaxweynahaad heli ama ra-iisul wasaarahaad heli ama kambaad heli dee qolunbaa soo baxaysa qola markay soo baxdo inta dambe waxay dhahaan waryaadhe nimankii reer hebel baa meesha qabsadee yaynagu dowladoobin haddaba caga haya afartiisa sane caguhun baa la hayaa ila reer hebel baa laga ilaalinaya magaca iyo maamulka iyo maamuuske afar sane markaynu halkii un taagannahay ayuunbaa haddana heesihii dib loo qaadaa soomaaliyay tooso waa kii shirkii labaatanaad baynu oran ma ummad 20 goor shirtaad aragtay waan dowlad u dhalanaynin kayf yumkin idan maaha masaladu miyaynan shirayn maaha miyaynan dowlad samaynin maaha waxa masaladu waxa weeyaan cultural revolution baynu u baahanay waxaynu u baahanay dhaqan bedel waa layna dhaqan bedele ummad suldaankeedu qayelayo madaxweynaheedu qayelayo maamuuskeedu qayelayo wada mukhadara ummad qof waliba wuxuu soo gaaro u xadayo ummad qof waliba wax kasta uu qaadanayo inteeda badani dee ma jirto waxaan tiiriyadana dawladda hal qaqayga wax lagu oranay maxaa dawladda uga qayb gal wadaadada maxay ka idinku ahlu taqwaysan hadii madaxweyne laga dhigo wax isbedeli maayaan way dawladnimadu waa ummad nin maaha qof iyo laba iyo saddex maaha waa ummad fikrad rumaysatay oo wax qaadatay oo ku socota haddaan taasi jirin qof iyo laba iyo saddex iyo ka ugu daacadsan haddii la geeyo huwa intii kala caga haysa muxuu samaynayaa nin reer hebelun buu noqonayaa sumadaasu yeelanaya markuu meesha tagee reer hebeladii kalena waxay leeyihin cagaa hayda iyo kugu dowladoobine marka ayuha alaxiba waxay leeyihin waxaan u baahannahay ضعف الوعي العام baa jira aqoon-yahanku waa qofka bedela bay yidhaahdaan waa sunaacu ra'yi waa dadka bedela cuquusha ummadda oo waa maxay ummaddu cuquusheeda waa la bedelaa sida wuxuu aragtay waa laga bedelaa mashaakilkuna guduhu ka yimaada ilaahay wuxuu leeyahay laqad manna allahu cala almu'miniin لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير لبدنا آيات اسكحيان في سورة آل عمران إلهي وحلي يدتك مؤمنين تا إلهي وحيدون كق الله ضيستي dadka muuminiinta rabbi wuxuu ku nimcaystay oo ku galladaystay rasuul iyaga kamida oo ilaahay aayaadkiisa ku dul akhrinaya oo taskiya naftooda rabbaynaya xumaha ka taahir yeelaya oo kitaabka iyo xikmadda baraya inkastoo ay markii hore dad baadi ahaayeen idan manhaj sax baa ilaahay idin siiyay baa la leeyahay laakiin haddaa manhajka ka weecataan maxaa dhacaya waa jabaysaan maca aad manhaj saxa haysatid haddaad raaci weydo يعني نولشة إلهي وحط الماما يا سنن ذرس اللو قانون باكرة إلهي نولشة ودتشيء وهدات كصحة مرتنا تقول يسنيسو هدات كقلدان مرتنا أتشبيسو سادردد بقى آياتك وحكت إلهي وحليه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها مركي أيدن هلا شيء بلايو دب إياكو بقى هدات ككلا مثل مدى قارسيسين أيها واحد قلت من هذا كيف هذا سوى كانوا دعسان وشبنا من المؤمنين هين إلهي وحقو جواب قل هو من عند أنفسكم إذنكم بدكم يتكيمي إذنكم بدكم يتكيمي
idinkuma dhibku idinkayo macnaheedu waa maxay waxaa la leeyahay Khalid